diyaar matiin kow labo saddex way bilaabanaysaa daawade waa dawaal waali ah waa kan taageerayaasha aad ayay u kacayaan waa kan dawaal waa kan maanta waa mucjiso waa maadays waa wax kale haloo sacbiyo guulaystaha maanta waa u jeedaan taageerayaal aad u fara badan ayuu leeyahay wadayaal waxaad daawanaysaan waa tartanka dabaasha ee beerta banaadir waa maalinta labaad ee ciida beerta banaadir ku suganahay dhalinyaro aad u da'yar isla markaana dawaalka aad ugu sareeya ayaa halkan ku sugan ninkii guulaysta hadiyad ayuu heli doonaa soo dhawow magacaada maxamed diyaarata maanta dawaasha waa tahana haye adiga magaca haye wiliga waa dawaalo jirta ama saaxiibo biyaan ku margata haye soo dhawow axmed haye diyaar waa tahay daawade waad u jeedaan caruurtan dawaal ayay diyaar u yihiin tartanka waa dawaasha ee beerta banaadir aan ku sugana waa barkeed aad casri u ah isla markaana loogu talagalay inay ku dabaashtaan caruurta da'da yar ayaa halkan ku taala waa goob dalxiis ah waa goob aad u shidan waa goob qurux badan waa goob marka aad timaado adiga xitaa aad u bagaysid way bilaabanaysaa tartanka way gudbi doonaan caruurta xaggay tagayaan waa laba wareeg ayay galayaan waa daawanaysaan waxaad arki doontaan cidda guulaysato iyo hadiyadda waxay noqon doonto marka dhammaan shacabka ku xiran durdurmeedii waxaan leenahay ciid wanaagsan ciid mubaarak kullu caam wa antum bil khayr waxaan ka soo dhaxalayaa waa barkadii weyneed ee beerta banaadir tartanka waa dawaasha beerta banaadir waa maalin ciid ah waxa bilaabanayso dawaashii waa gudbi kartaan hore u gudba asxaabta waa u jeedaan diyaar garow ay ku jiraan way gudbayaan waa raaci doonaan waana arkaysaan caruurta waxaa la rabaa inay aad u dabaashaan waa dawaal waali ah oo aad abid arkin goob casri ah ayaa halkan ku taalo oo ay ku dabaalanayaan caruurtan ayay way bilaaban doontaa daawadayaal waa u jeedaan waxaan saarana tamaya waa saddex caruur sida aan hore idinku sheegnay waa laba maxamed oo sami ah iyo axmed waan arki doonaa waxa dhici doona dabaasha ayaa bilaabanayso diyaar matiin kow labo saddex way bilaabanaysaa daawade waa dawaal waali ah waa kan way galayaan dabaalka ayaa bilaabanaysa waa kan waa saddex wiil waa maxamed iyo axmed iyo sidoo kaleenta waa dawaal aad u kala kacsan markan waa la isku dhegan yahay dabaasha ayaa soconaysa laba wareeg ayaa baasha noqonaysa wareega koowaad waa kan waa la soo galaya dawaal waali ah waa dawaal mucjiso ah waa maalin weyn waa maalin wax kala ah waa la hartamayaan waa saddex ciyaaryahan aan innaba macquul ahayn waa saddex ciyaaryahan naga waalaya waa kan wareegay labaad ayaa bilaabanaysa wareega labaad ayaa hadda bilaabanaya mid ayaa haraya axmed waa laga tagay laba axmed ayaa isku dhegan taageerayaasha aad ayay u kacayaan waa kan dawaal waa kan maanta waa mucjiso waa maadays waa wax kale macmil haddii aad tahay arday danaynaya inuu wax ku soo barto dalka turkiga weliba qiimo macquul ah ku soo dhowow shirkadda askunicom oo soo saarta waxbarashada dibadda iyo fiisaha dalka turkiga soo booqa xafiisyada shirkadda muqdisho hargeysa garowe gaalkacyo beledweyne iyo istanbul kala xidhin nambarada shaashadda kaaga muuqda ama booqo websayte-ka www.askuni.com waa maalin weyn waa maalin waxba laga qaban karin waa laga soo hormaray igaarkan waxaan rabnaa inaan iminka aan sheegno qofka ku guulaysta tartankii dabaasha aadka u qurux badnaa oo aad kala socotay durdur media dabaasha ciida waaye beerta banaadir ku sugneen waxaan ku wareejinayaa saaxiibkay cabdullaahi tiktok oo asaga dhankii guddiga noo fadhiyey intaan cabdullaahi ku wareejinin waxaan cabdullaahi horta ku bilaabayna asagaa noo sharxi doono kadib dareenka ay labada qofka guulaystay ayaan soo bandhigi doonaa asagaa ku dhawaaqi doona tartanayaal waa idin salaamay anigoo ah cabdullaahi tiktok meeshaan ciyaar kulul ayaa ka dhacday waxaa meeshaan ciyaar aanan caadiyeyna ka dhacday meeshaan marka guulaystaha iyo laga guulaystahaba meesha way joogaan meeshaan xaadir ay ku yihiin waxaa tartanka ku guulaystay dad badanna way joogeen marka oo markhaati dadka waxa dhacay waa la wada jeeday wax indhaha saarnimo marka waxaa tartanka ku guulaystay yarkaana ku guulaystay marka tartankan wixii dareenkiisa weydi doonaa maadaama ninkan asagana uu aad u dadaalay
laakiin ugu dambeyntii shaabtada uu la gafay marka tartanka waxa waa mid aad u adag xariifa xataa haqbarawi oo tartanka ka hari 3 ruux oo u dhaxeeyay soo dhawow magacaada أحمد حسن إسحاق axmed xasan isxaaq bal ka waran dareenkaada maadaama aad ku guulayst tartanka haye maxaa leedahay shacabkaada وما سنتين waa tahay farxad darteed xataa waa la hadlila'ya dadaalka waa kan uu soo dadaali soo dhow magacaada محمد آدم maxamed aadan qofka waa soo dadaashay maadaama aad soo dadaashay maxaad dareemay aad ma ugu xunta madaxuu salaacanaya daawade waa u jeedaan uu hadlila'yahay marka tartanka waxa uu ahaa tartanka dabaasha beerta banaadir maalin ciid waaye waxaa loogu talagalay caruurta yaryarka ah ee halkan u soo damaasho tagaya in ay halkan ku hardamaan tartan adagna uu dhaxmaro isla markaana hadiyad la guddoonsiyo taas oo ay bixinayso ama ay bixinayaan maamulka beerta banaadir oo ah goob aad u qurux badan bergadan aad u jeedaan waa bergad weyn isla markaana ay u soo damaasho tagaan dhammaan dhalinyarta Soomaali ee halkan degan Muqdisho la yiraahdo waxaa jiro dad gobol ka yimaada Dr. Samir Maxamed oo ah dictorka xarunta Fayo Clinic waxa uu ka dabaynayaa dhammaan cudurrada ku dhaca maqaarka sida xasaasiyada finanka wajiga ambaarta go'go'a timaha hareeraha wajiga waxa sababa kareemka oo si qaldan loo isticmaalo ama la marsado wajiga finanka wajiga honqorta iyo dhammaan cudurradaasi maqaarka ayaa waxa sababa daawooyinka la isticmaala iyada oo daawooyinkaasi loo isticmaalo si qaldan haddaba waxaad kala xiriiri kartaa taleefanada shaashada kaaga muuqdo ama gaar xarunta Muqdisho ee ku taala isgooska dabka Fayo Clinic ayaa ah xarun mar walba ka daaweynaysa cudurrada maqaarka iyadoo doctorka xaruntaasi uu diyaar kugu yahay sidoo kale gaalkacayo xarun ay ku leeyihiin daash weyna ku dhisan waa u jeedaan oo aad u kala kacsan wiilal shidan iyo gabdho shidan inta way joogaan marka waxay sugi laayihiin awaalmarinta qaaliga ah waxa hadda idin muuqanayo waa beerta banaadir oo tartanka xiisaha badan leh oo ku dhaxmaray axmed oo guuleysaha ahaa ayaa hadda saacadaha ama daqiiqadaha ama sakimaha ama waqtiga dhow ee soo socdo filayna inaan ku guddoonsiino awaalmarintiisa qaaliga ah waxaana geyn doonaa holka weyn ee beerta banaadir oo ay awaalmarinada ku bixiso adiga hadii aad rabtid dalxiis hadaad rabtid raashin hadaad xaflad qabsanaysid hadaad xaaskaada xataa aad aroos dhiganaysid inta waxaad ka shida kartaa beerta banaadir ha ku degdegi meel kale oo beerta banaadir yihiin daawada waxaa ila jooga guuleysta adeerkiis oo aad u kala kacsan iyo taageerayaasha aad u jeedaan oo igaarka guuleysta aad u taageersan bal ka waran dareenkaada dhammaan shaqaalaha durdur media iyo dhammaan shaqaalaha guud ee beerta banaadir aad ay u mahadsan yihiin meesha waxaa ka dhacay tartan culus aad la isku qabtay waxaa soo xasuustay waayo ugu dambeyn gari laba qof kama qoslayso ugu dambeyn axmed ayaa ku guuleystay guushu taariikhiga uu soo jeediyay aad iyo aad uu tartanka maadaama uu soconayo dhalinyarta kale maxaa leedahay maalmaha ciid beerta banaadir imaada tartanka noocaan ka qayb qaata oo atooshirna la kulma idin wareysto beedha waa aadi doonaa mardhow reer beedha waay asxaabtan dawaal wubi asoo ka saay oo dawaal garbada lagu geenayaa garbada lagu geenayaa hadii Allah admo meesha tartan noocan ka qaban doonta hadda ma kugu soo dhaweynaa maxaa leedahay shacabka Soomaali maalmaha ciida lagu jira ciid mubaarak aan leeyahay kullu caam wa antum bikhair shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan dhammaan gaar ahaan dadku soo damaashaad tagay beerta banaadir waxaan leeyahay ciid wanaagsan kullu caam wa antum bikhair ciidan ciideeda kale bashbash iyo barwaaqo Allah nagu gaarsiiyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed dhammaan ummadda islaamka meel walba ay joogaan halo saaxiibo guuleystaha maanta waa u jeedaan taageerayaal aad u fara badan ayuu leeyahay wuxuu sugaa inuu qaato hadiyada daawade waxaad sugtaan inaan hadiyada aan bixin waa maalintii koowaad ee tartanka beri waxaa jira tartan kale oo dabaal maadaama maalmaha ciida tartanka ay ka shidan tahay beerta banaadir maxaad filaysaan hadiyada ayaa hadda la keeni doonaa waa kan waa hadiyad qaali ah shuweermo waaye uu ku guuleystay adeerkiisa guddoonsiina waa kan hadiyadu ku guuleystay marka asxaabta maxaa leedahay Ahmed tartan adigu soo galay waxaan leeyahay waa u jeedaan
hadiyadii ku guuleystay waa la guddoonsiiyey berina mid ka sii weyn iyo hadiyada noocan mid ka doonaa imaan doono dawaasha beri beerta banaadir u soo daadega hay maxaa leedahay taageerayaasha waa maasantiin hadiyada waa ku guuleystay marka daawade adiga daawanaya haddii aad aabata haddaad hooyata haddaad walaalta intaba beerta banaadir ha moogaanin inaad beri aad ka soo qayb gasho tartanka dawaasha ee beerta banaadir waa catooshare kaamirada gaduudo axmed oo hadiyadii la guddoonsiiyey adeerkiis beerta banaadir ayay ka shidantaa commenti aad u qurux badan hala soo qoro guulaysaha maxaad ku dhiirigelinaysaa catooshare bye bye Banana Group waxay ka caawinaysaa inaad hesho fiisaha waxbarasho caafimaad dalxiis iyo deeqo waxbarasho oo dalka dibadiisa ah sidoo kale dadka doonaya inay u safraan dalka Turkiga waxay ka caawinaysaa iibinta kireynta guryaha iyo sharciga deganaanshaha hadda fiisa ka dalbo wadan alaala wadanka aad rabtid shirkadda Banana Group